السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. weli waxaa inoo socda koorsadeeni waxaa ku baranaynaa sidee maalin gudaheeda $50 u samayn kartaa. dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isdhahaan macquul maahan maalin gudaheeda $50 u samayn kartid. waxaa idin hayaa yani trick ama hab yani dadka badana aysan aqoonin laakiin aan rabo ardayda inay ka faa'iideysto. habkan waxa waaye waxaa abuuraysaa Google AdSense account. dadka waxay dhib ku qabaan website-yada leh ama YouTube channels kale inay helaan hal dhaha Google AdSense. marka waxaa jiro qaab fudud oo aad ku heli kartid yani waqti badana waxa ku sameeyay baxsi waa research gareey waxa ogaad marka hab fudud oo yani AdSense account aad abuuri kartid. ugu horreyn waxa u baahan tahay horta Gmail account mid hore u jiri inaad leedahay ama mid cusub inaad sameysid. mid kale waxa u baahan tahay international address tusaale qof waddan kale joogo Soomaaliya lama aqbalayo. waxa u baahan tahay website muhiim ah inaad website leedahay. qof kale website-kiisa dahaysiisa waa caadi yani ana idin bari doono soo practical sameynayna. waxa kale oo baahan tahay inaad sameysid Google AdSense account. waxaa jiro qaab loo abuuro ayadana waa baran doonaa. okay marka waxyaabaha kale oo muhiimka waxaa jiro oo waxaa ka mid ah Google AdSense account marka inaad sameysid wadamo waxaa jiro oo 10 wadan yani oo CPC-gooda oo aad u fiican yahay oo lacag badan u helo. CPC waxaa la dhahaa cost per click yani qofka akhrisanaya ee website-kaaga soo booqdo Google AdSense markuu arko xaysiimaha website-kaaga saaran markuu click u dhaho waxaa la dhahaa cost per click yani lacagta ay ku helaysid clicktaas waxaa la dhahaa cost per click. waxaa kaloo jirto cost through rate. waxyaabahaas waxaa ku baran doonaa yani book hadda aan qorayo jiro gabagabo waa buuggan markuu dhamaado dakhliga Google AdSense ka soo galay sida loo xisaabiyo iyo waxyaabahan buuggan ku baran doonaa insha Allah. marka wadamadan waxaa kamid ah United States of America kamid ah Canada kamid ah waxaa kaloo kamid ah United Kingdom waxaa kaloo kamid ah Australia Norway Germany waxaa kaloo kamid ah Netherlands New Zealand Sweden South Africa. tobankan wadan waxay kamid yihiin wadamada ugu fiican marka u baahan tahay Google AdSense account. cashirkeen halkaan ku egyahay cashirka xig waxaan ku baran doonaa qaabka account loo abuuro AdSense account oo diyaarsan sida loo helo iyo sida dad loogu iibiyo.